السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadaashayda qaaliga meel walboo daafaha caalamka kaga sugan tihiin kusoo dhowaada janalkayga emras. waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa in aad janalkayga subscribe saarto. subscribe-tu waa lacag la-aan, ha u malaynin inay lacag tahay. waxaa kaloo lagaa codsanayaa inaad asxaabtaadana u sheergarayso, balse waxaa asxaabtayda qaaliga ah meel walbo aad daafaha caalamka ka joogtaan waxaa idiin soo gudbinayaa fariin ku saabsan caafimaadka. mar walba ku dadaal caafimaadkaaga inta aadan wax cunin, inta aadan meel u bixin, inta aadan maxaa la dhahaa gacmahaaga aadan isticmaalin ka hor iska dhaq. mar walbo isku day inaad gacmahaaga dhaqdo sida ay diinteena suuban qabto. intaasi kadib waxaan rabaa maanta barnaamijkayga inaan ka hadlo. barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay deyn cafinta loo sameeyey soomaaliya oo weli broseskeedu u socdo, iyo dilkii shalay ka dhacay dadka qaar ay u aaneeyeen in ay yihiin dad koonfur ka soo jeeda. labadaas arrimood ayaan rabaa inaan ka hadlo, kuna soo dhawaada barnaamijkayga mar kale. si sharaf leh waxaa lagaga codsanayaa haddii aad janaalkeena ku cusub tahay in aad sii sheer garayso, subscribe-tana aada nagu caawiso, like-tuna waxaa waaye haddii aad ka heshay barnaamijyadeena inaad like saarto. meeshaan uma soo fadhiisano in aan cayno qabaa'il, inaan cayno shaqsi qaar ah, inaan wax ka sheegno, laakiin sida ay wax inoola muuqdaan ayaan jecelnahay in aan ka falanqoono, aan wax ka sheegno. waxaana mar dhow soo gudbin doonaa barnaamijyo aada idin xiisegeliya. inkastoo barnaamijkan aan hadda soo wado uu ku saabsan yahay arrimaha somalilan oo ay kaga hadleen deyn cafinta soomaaliya. aan ku hormaro somalilan. maalin hore waxaa fadhiistay madaxda somalilan oo ugu sareeyo madaxweynahooda, waxayna go-aan ka soo saareen deyn cafinta soomaaliya. marka reaction haddii aan ka sameeyo meeshaas waxaad is leedahay somalilan iyo soomaaliya ma laba dalba? marka hore waa maya. somalilan ma caalamka ayaa aqoonsan? marka hore waa maya. soomaaliya markay deynta qaadanaysa ma 1991 ahayd? waa maya. meel lagaga cafiyo ama ay kaga baxdo somalilan meeshu ma taalo, because somalilan ma ahan dal gooni ah, waa dal soomaaliyeed. magacaba ka eeg somalilan waa dhulkii soomaalida. marka waxaan leeyahay faysal cali durwaa iyo asxaabtiisa oo faysal ugu horeeyo mar walba markii uu hadlo qabiil uun afka soo geliya. xilligii qabiil iskugu orgacsanayay ummadda way ka tagtay. reer somalilanna waa ay fahmeen waxyaalaha maanta ay siyaasaddu isku hayaan aysan ayagu dan ugu jirin, dantuna ay tahay midnimada soomaaliyeed. deyn cafinta soomaaliyane waxaa waaye adi lagaama cafinine soomaaliya oo dhan ayaa laga cafiyey. deynta sideeduna waxay ku timaaday dulsaar iyo ganaax. waxa ay soomaaliya qaadatay waxay ahayd lacag yar, lacag aada u yar ayay ahayd. marka in ay u fadhiistaan oo ay arrin ka soo saaraan taasi waxaa waaye sheekada ku badso ama hadalka ku badso sida aada u taqaanaan. laakiin deynta soomaaliya ayaa laga cafiyey. somalilan 1991 soomaaliya lacagtaa maysan qaadanin. 1991 dowlad soomaaliya maysan dhisnayn. dowladdii waatii ee burburisay reer miigii oo burburiyey. marka
ma la isdhihi karaa anigu deyntaas yaana laga cafinin midda kale sababta u leedahay maxay tahay yaana laga cafinin ya sababta aad u leedahay yaana laga cafinin maxay tahay ma horumar baad u diidan tahay soomaaliya inteeda kale anaga kuma jirno iyo anagu saan ma ahayn iyo waxaasi waa war ku tiri kuteen ah madax akhasu naas ahaa meesha iskugu timid oo aanan danta ummadda ka fakarin hantidii ummadda dhacaaya guryihii ummadda dhacaaya marwadii madaxweynihii hore ee dalka dhulkoodii ku haysta dadkaas madaxweyne ma lagu sheegi karo dad ma lagu sheegi karo maxaa la dhahaa astaan qaran lagu matali karo waa dad qabiilne meel gooniya inay u taliyaan waa habeenkii xala tagay midda kale aan rabo waxay tahay labadan beri baraha bulshada aan akrinayay waxaa kasoo baxayay qaraxii ka dhacay puntland dadka badankooda waxay dhaheen dad koonfur kasoo jeeda ayaa qarxiyey adeer waxaan kuu sheegayaa qofka isqarxinaya naftii haliga ah ama qofka dadka laaya qabiil ma leh koonfur iyo waqooyi ma leh nugaal iyo bari ma kala leh waa nin soomaalinimada ka baxay soomaalinimadana nacab ma ahan inaad ku aanaysaan koonfur buu kasoo jeeda iyo waqooyi buu kasoo jeeda iyo wixii xun baxaawaale miya koonfur haddii wax walba ay ka dhici jireen haddii maanta meeshaas wax ka dhacay ma nin koonfur aha geystay wixii xunba maxaawaale yaa hargaahi saamaha kii qarxiyey haddii aan dhahno puntland buu kasoo jeeday mise somaliland uu kasoo jeeday maxay soo kordhinaysaa wax ma soo kordhinayso waxaa waa nin diintiisa iyo dadnimadiisiiba gatay waayo marka laguma mataalo nin dad laayay masaakiin ah berimageeda ah waxba aanan galabsan nin laayay lagu mataalo nin argagixiya shacab soomaaliyeed ama koonfur ama waqooyi ninkii wax qarxiyey wuxuu ahaa nin naftihaliga ah soomaalinimada kasoo horjeeda dowladnimada kasoo horjeeda shacabka horumarkooda nacab marka dadka badanaa baraha bulshada ku wadwaday warka ah ninkii isqarxiyey koonfur buu kasoo jeeday anaga koonfur kasoo jeednay adeerow koonfur waxaa waaye kama soo jeedo waa nin soomaali nacayb ah waa nin soomaali aanan jeclayn marka niyad xumadiina iyo qabiilkiina iyo qurunkiina inaa qaarkiina ka saartaan waddada saxda ee nabadda iyo wanaagga iyo kalgacaylka kusoo toosa qabiil lagu faana waxba kuma soo kordhinayo meelna kuma geynayo dowlad qaasna kulama kulmi kartid waxaan kuu sheegaa waxaa loo baahan yahay in shacabka isku duubnaado ninka dhibaatada wadaana la iska qabto laakiin in loo aaneeyo ma aha nin isqarxiyey in la dhaho wuxuu kasoo jeedaa koonfur how many thousand of people oo ku dhintay ee soomaaliya koonfurta ku dhimatay ya dad baa loo aaneeyaa dadka loo aaneeyana waa taqaanin soo dadkaasu qabiil ma leh maanta barnaamijkayga idinku sii dheeray maayo waxaan rabaa inaan halkaas kusoo koobo wixii aad ka fahanteenna waa wixii loo baahnaa inaad qaadataan wixii wanaag ah marka wixii kale oo barnaamijyo ah oo aan rabno inaan soo gudbino oo ku saabsan barnaamijyada hadda aan meeshaan ka soo gudbino waxaad mar walba nagala socon doontaan janaalkeena emras iyo beejkeena facebook aan ku leenahay soomaali baale iyo isla facebooka beejka kale aan ku leenahay emras halkaasna waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkayga aan maanta kaga hadlaya arrimaha somaliland iyo qaraxii ka dhacay puntland soo waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabad geliyo